Shirkad laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa bilowday inay ogaato haddii carruurta ama dhalinyarada jiilka soo koraya maamulaan dunida sida ay noqon lahayd. Bixiyaha tamarta la cusboonaysiin karo ee UK, Good Energy ayaa u magacaabay 6 dhalinyaro ah oo da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 17 inay fariistaan oo sameeyaan talo bixin cusub oo ku aadan sida ay wax u arkaan. Waxyaabaha cajiibka noqday ayaa ah in fadhigooda loo ogoleen qof weyn. Mid ka mid ah xubnaha guddiga waa Shiana Shah, 14 jir ah, ku nool London. Waxa ay aad u jeceshahay deegaanka, waxayna rabtaa inay adduunkeeda u ilaaliso jiilka mustaqbalka soo aadan. Waxaana ay tiri, waxay ila tahay in dadka waaweyni ay marka hore waxa kaliya ee ay ka fikiraan waa lacagta, balse mar walba ma doortaan ikhtiyaarka ugu wanaagsan. Jake Ceylon oo 13 jir ah ayaa sidoo kale ku jira guddiga la talinta, isaga oo magacaabidan helay xilli uu jiray 12 sano. Waxa uu sheegay in uu ka faa'iideystay fursaddan isagoo doonayay inuu wax ka barto ganacsiga iyo suuqa tamarta. Waxa kale oo uu rajeynayaa in uu ka faa'iideysto fursadda ah si uu uga caawiyo ilaalinta qaar ka mid ah goobaha duurjoogta ah. Goobahaas waa qaali, ayuu yiri Jake, oo haddii aynan ilaalinaynin markaas ma heli doono meel aan ku noolaano. Dadka qaangaarka ah waxay diiradda aad u saaraan waqtigan xaadirka ah si ay shaqadooda u qabsadaan. Miyay madaxdoodu shaqada ku farxi doonin? Ma heli doonaan dalacsiin halkii ay hore uga fikiri lahaayeen oo ay tixgelin lahaayeen saameynta mustaqbalka fog ee ficiladooda, ayuu yiri. Shiana iyo Jake labaduba hadda waa jiilka ugu badan dunida. Mid ka mid ah warbixinada noocaas ah waxa ay sheegaysaa in xubnaha generationka ama da'yarta hadda yihiin 2.5 bilyan oo qof, oo u dhiganta 32% dadweynaha adduunka. Xubnahan guddiga la talinta waxa ay sheegeen in aysan ka cabsanaynin in dadka waaweyn u sheegaan ama ay u sharxaan waxa ay u arkaan in ay ku qaldan yihiin. Da'yartan ayaa isugu jira carruurta dhashay bartamihii 1990-meeyadii iyo horaantii 2010. Waxaad fursad u haysataa daawade inaad aragtidaada ama fikradaada aad uga hadli karto qaybta commentiga.